wafti baladan oo hogaaminayo wasiirka wasaaradda hawlaha guud iyo guryeynta somaliland cabdirashiid ducaale qambi ayaa maanta lagu soo dhaweeyay Buuhoodleh. waftigan waxaa ka mid ahaa gudoomiyaha gobolka Buuhoodleh Mustafa Xaaji Cabdi Muuse Nuur, gudoomiyaha xisbiga kulmiye Buuhoodleh Salabaan Cabdi Xuseen Salabaan Anjeex iyo mas'uuliyiin kale. qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaanka Buuhoodleh ayaana soo dhaweyn baladan u sameeyay, waxaana waftigan ku soo hakadeen deegaanka Qorlugud, halkaas oo waftigu kulamo kula soo qaatay wasiirka hogaaminayo waxgaradka iyo odayaasha ku dhaqan deegaankaasi. waxay soo mareen deegaanka waxaana markii dambe wasiirka loo soo galbeeyay gudaha magaalada Buuhoodleh, waxaana galbinay gaadiid aad u fara badan iyo waliba gaadiidka dagaalka. soo dhaweynta wasiirka waxaa ka qayb ka ahaa gaadiidka dagaal oo aad u fara badan, gaar ahaan gaadiidka BM-ka loo yaqaano oo aan arkayay soo dhaweynta wasiirka ka qayb qaadanayay. wasiirka ayaa markii dambe waxa uu kala hadlay Buuhoodleh hooga loogu talagalay, waxaana halka ugu horeen ka hadlay maayirka degmada Buuhoodleh iyo gudoomiyaha gobolka Buuhoodleh, waxaana ugu dambeyntii halkan ka hadlay wasiirka faafayn ka bixiyay ujeedadiisa uu yimid Buuhoodleh. aad baan wasiirku soo dhaweynayna anigoo ku hadlaya afkii golaha deegaanka degmada Buuhoodleh maayirkii aad iyo aad baan idin soo dhaweynayna dhammaan isimada uqaasha waxgaradka dhalinyarada ururada bulshada oo dhan. wasiirka hawlaha guud iyo guryeynta iyo dhulka mudane cabdirashiid ducaale qambi oo annagu aan uga soo alkamidnahay iyo gudoomiye ku-xigeenka jaamaca deeg cabtan sida wanaagsan ee ehelnimada ah ee quruxda badan ee aad noogu soo dhaweyseen aad iyo aad baanu idinka mahad celinaynaa. waxaanu idin leenahay jasaakumullahu khayr. xilligu waa xilli kulul, waxaynu u baahannahay inaynu nabadaynu qaadanay taanu joogno, inaynu noo adkaato, inaynu habsanka iyo dibadhaha ku yimi gobolkan runtii colaadu keenayna somaliland kaga dambeeya aynu ka saarno. waxaanaynu kaga saaraynaa markaynu horumar u jeesanno aynu colaada iyo ilowno sidaa ay maanta nabadda u tahay inaynu adkayno. qof kastaana inuu mas-uul noqdo halkiisa xil iska saaro daaduu doonaha ahaadee. aad iyo aad baa mahadsantihiin. assalaamu calaykum. dayda inay gobolkeenna nabadgelyadeeda aynu maanta ku naaloonayno ay khalkhal geliso waa inaynu iska qabanno weeye, oo aynu ka hortagno weeye, oo aynan wuxuu doonaya aynan la qaadanin. waxaan idinku adkaynaynaa nabadgelyada inaad haysaan oo aad si wanaagsan u haysaan oo nabadgelyada aad ku mintitaan, taasaynu aakhiriya adduunkaba ku liibaanayna. nabadgelyada ma ku mintidnaa soo kuma mintidno. reer Buuhoodleh inta la ayay lagu hawlgeliyo waxaan agtooda oo aan u dhoweyn oo nabadgelyadooda lagu jabiyo wax wanaagsan ma aha. reer Buuhoodlehna waxay ku ogaan karaan wixii ka shaala ka dhacay. ciddii maanta doonaysa ciidamo soo gura soo kacay tolaayay markaaba may jirin, maantana waxay u jirtaa ma jirto. reer Buuhoodleh waxaan odhan lahaa nabadgelyada aad haysataan iyo wanaagga aad haysataan, midaad deris ku haysataan, midaad sokeeyo ku haysataan iyo midaad shisheeyo ku haysataanba waxaa wanaagsan inaad ku faraalaytaan baan odhan lahaa. dowladda Puntland, dowladda somaliland halkan inay wax fidnaa ka kiciso iyo inay wax dhiba ka geysato iyo inay dagaal meel la ku qaado diyaar uma aha. qabana mayso, falina mayso, taasina waa xaqiiq jirta. waxaan kaloo u sheegayaa dowladda Puntland oo xaqiiqa iminka wakhtigeedii wuu sii dhammaanayaa in ay dagaal dadka dhiiggiisa ku bilaabaan si wakhtigooda loogu kordhiyo wax waxtara maaha, wax derisnimo maaha, wax dadka waxtaraya maaha. taana waxaan odhan lahaa walaaladayo in nin mikrafoon ka caytamay waxuma taro, nin mikrafoon ceeb ka sheegay waxuma taro, nin mikrafoon balaayo iyo dad in isku dira ka sheego waxuma tarto. waxaan odhan lahaa war somaliland dagaal ay wadaa oo ay cid ku qaadaysaa oo ay Puntland ku qaadaysaa oo ay bilaabaysaa oo ay horseed ka tahay ma jirto. wadidinkan waxaan odhan lahaa war ilmaadeerayaal oo waktigii intuu idinka dhammaanayo dowladda Puntland ee gaas waktigeedii sii dhammaanayo inaad ku kordhisataan waktiga dowladnimo in dagaal dhaco oo la islaayo oo dhiig daato waxba tari mayso. wax allaala waxay taraysaa ma jirto. reer Buuhoodlehna awal bahiil iyo ciidamo aad siisaan iyo difaac aad difaacdaan Buuhoodleh kumay deganayeen tooda yay ku deganayeen reer Buuhoodleh. iminka waxaad u tiraahdaa soo kaca oo dagaalama oo balaayo gala waa arrin aan meesha qaban.